بسم الله الرحمن الرحيم قلب وناكسنا قيارتا نلا سقطاي إدلكين با ميل كستوا دنيدا كجوكتان كسو دوادا مركلة إيه تبينتا برامجكا تحناها قبناها برو شو وأن ستوسا وقفا قيدا يوراركي وقودن بي قبل كاباريغا دحي حيساد دميشا أي مريسو ودا هدالada Mareykanku ay doonayaan sida ay hadda u socdaan dhaqdhaqaaqa ka soconaya wadanka Masar iyo warar kale ayaan idin sheegi doonaa waa 20ka bisha Oktoobar sanadka 2025 qodobadaasi haddii aan idin dul maraa aan idin hayana waxa kamid ah markii ugu horeysay ayaa dawladda Mareykanku waxa ay garwaaqsatay dagaalka Israa'iil ee ku qaaday dhulka Falastiiniyiinta inuu sababi karo qasaare aad u xoogan isla markaana xiisada ay faraha ka sii bixi karayso waxa iminka soconaya wada hadallo ay leeyihiin Jared Kushner oo ah wiilka uu sodogga u yahay Trump isla markaana kamid ah la taliyaashiisa sare iyo Steve Witkoff waxana ay ka wada hadlayaan xiisada gobolkaasi ka taagan dhinaca kale waxa lagu soo waramayaa in xiisada ay caadi hadda u degtay oo inta badan dhaqdhaqaaqyo badan aan jirin Israa'iilna ay ogolaatay laba wado in la furo oo gargaarka uu ka soo gala magaaladaasi wararka sidoo kale soo baxaya waxa kamid ah wasiirka amniga gudaha Israa'iil Itamar Ben-Gvir oo ku dhawaaqay inuu ka baxayo isbahaysiga xukuumadda haddii aan la qaarajin maxaabiista Falastiiniyiinta oo Israa'iil ay gacanta ku hayaan warbaan idinka leeyahay arrintaasi goordhaweyd ciidamada Israa'iiliyiintu waxa ay duqeeyeen koonfurta Lubnaan kadib markii ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen saldhigyo ay lahaayeen ciidamada ururka Hezbollah lagu magacaabo ee ka dhisan gudaha wadankaasi Lubnaan wada hadallo ayaa lagu soo waramayaa inay ka bilowdeen magaalada Masar dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira oo u dhaxeeya dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta ee Hamas la yiraahdo iyo dawladda Masar oo Abdi Fattah al-Sisi hogaamiyo ujeedadu waxay tahay in xiisada hoos loo dhigo dawladda Iiraanna war ay ka soo saartay sida ay u badbaadisay nuclearkeeda intii lagu guda jiray dagaalkii bishii June ay la gashay Mareykanka iyo Israa'iil qodobadaasi iyo taxanayaal kale ayaan idinku sheegi doonaa barnaamijka haddii uu Rabbi saamaxo waxaan ahay Cabdicasiis Barrow barnaamijka Barrow Showna waa daawanaysaan khiyaaray ku soo dhawaada mar kale horeeya xiisada gobolka bariga dhexe gaar ahaan magaalada go'doonsanayd muddada dheer ee Gaza ayaa iminka lagu soo waramayaa in isbeddello waaweyn ay ka jiraan saacadaha la soo dhaafay wafuud ka socotay dawladda Mareykanka ayaa gaaray gudaha nidaamka Israa'iil dhulka ay ka qaateen Falastiiniyiinta waxaana ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu lagala hadlay xaaladda dagaalka in uu qaboojiyo isla markaana aanu cirka ku laalin si mar kale nabadda la raadiyo ay u adkaan karayso Jared Kushner oo ah wiil sodogga u yahay Trump iyo Steve Witkoff oo ah ergeyga gaarka ah ee Trump u qaabilsan gobolka bariga dhexe ayaa saacadihii ugu dambeeyay wada hadal xasaasi ah la lahaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil afayeen u hadla xukuumadda nidaamkuna waxa uu tilmaamay in wada hadallada la isla soo dhaweeyo oo la isla gartay in aan la ballaarin duqeymaha ciidamada Israa'iil ay fulinayeen saacadihii ugu dambeysay dunida ayaa shalay mar kaliya walwal uu ku dhashay kadib markii la arkay diyaaradaha dagaalka ciidamada cirka Israa'iiliyiinta oo duqeynaya meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin marinka Rafah Khan Yunis iyo waliba Jabaaliya halkaasi oo la sheegay qasaare aad u lixaad leh in uu ka dhashay afayeenka nidaamka Israa'iil u hadla xafiiska ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa waxa uu ka hadlay kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi danjiraha gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner iyagoo ka wada hadlay xaaladda siyaasadda iyo amniga bariga dhexe gaar ahaan xiisada sii kordhaysa ee magaalada Gaza iyo dadaalada lagu hirgelinayo heshiiska xabad joojinta wararkii ugu dambeeyay iyo dagaaladii dhacay ayaa lagu soo waramayaa inay geysteen qasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira sida qubarada qaar ba ay ku warameen ilaha caafimaadka ee ku sugan cisbitaalada ayaa sheegaya in tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskii xabad joojinta ciidamada Israa'iil ay qudha ka jareen 370 qof oo Falastiini ah halka in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawaceen rasaas iyo duqeymo ciidamadooda ay ka geysteen goobtii heshiiska laga gaaray
wasaaradda caafimaadka deegaanka ayaa intaa ku dartay isugeynta wadartaasi inay ku jirto 750 qof oo shalay oo kaliya la dilay halka 158 ruux oo kalena lagu dhaawacay 24 saac ee la soo dhaafay taas oo tirada guud ee dadka la dilay iyo waliba kuwa la dhaawacay laga soo tiriyo 7 Oktoobar 2023 ay ka dhigayso 68,216 qof halka dhaawacna uu cagacagaynayo 170,361 kale sida ay warinayaan daraasaadka iyo waliba tirakoobka ugu dambeeya ee lagu sameeyo dagaalkaasi. wasiirka amniga gudaha Israa'iil oo kamida wasiirada xaq jirka ah ee bahwadaagta la xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in uu ka baxayo isbahaysiga dowladda haddii aan la suuragelin in la qaarajiyo maxaabiista Falastiiniyiinta ee gacanta ugu jira xabsiyada nidaamka Israa'iilna ku xiran. wasiirka amniga gudaha Itamar Ben-Gvir ayaa ku hanjabay in uusan taageeri doonin codadka isbahaysiga dowladda haddii aan la ansixin ama aan sharci laga soo rogin ogolaanaya in la dilo maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee gacanta ugu jira dowladda uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu. tani waxay dhalinaysaa in ay xiisadda sii kordhayso saacadba saacadda ka dambaysa waxaana walaac laga muujinayaa arrinta la xiriirta jiritaanka rabitaan noocaas oo kala in siyaasadda Israa'iil uu qayb ka yahay. Ben-Gvir iyo waliba Smotrich oo ah laba wasiir oo bahwadaag la ah xukuumadda Netanyahu uu soo dhisay maadaama laba xisbi oo xaq jira ay kala hogaaminayaan waxa ay ku dadaalayaan in dagaalkaasi aanu soo gabagaboobin ilaa inta laga waynayo dhulkaasi carab halkaasi joogta. ciidamada Israa'iilna waxa ay ku warameen saacadihii la soo dhaafay inay duqeymo istaba jooga ka geysteen koonfurta wadanka Lebanon tan oo ka dhigaysa in nidaamkaasi uu ku xadgudbay xabad joojintii ay la galeen ururka Hezbollah ee kamid ahaa kuwa ugu taagta wanaagsanaa gobolka bariga dhexe ee nidaamkaasi ka soo horjeeday balse haatan wajahaya burburka xoog leh taasoo ka dambeysay markii la dilay mas'uuliyiintiisii heerarka isxigay ahaa oo ay ciidamada Israa'iil iyagoo ka faa'iideysanaya sirdoonkooda ay ku qaarajiyeen gudaha nidaamkaasi. ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa saacadihii la soo dhaafay sheegay inay duqeeyeen dhismooyin iyo kaabayaal ciidan oo ay leeyihiin ururka Hezbollah magaalada Nabatiya ee koonfurta Lebanon iyagoo sheegay in weerarka uu ahaa tallaabo difaac ah oo ay Israa'iil kaga hortagayso suurtagalnimada weerar lagu soo qaado sida goordhow uu baahiyay telefishinka Al Jazeera qaybtiisa afka Carabiga. mucaaradka Israa'iil ayaa ku dhawaaqaya in nidaamkaasi uu ku jira xaalad quusa marka la fiiriyo xaaladaha ugu dambeeya oo wajahaya iyo dagaalada sii kordhaya. Yair Lapid oo kamida dadka siyaasad ahaan aadka ula loolamaya ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa ku tilmaamaya in xukuumadda jiha qariska tuurnimo ay ku socoto marka la fiiriyo jihooyinka dowladda ay wajahaysa iyo xaaladda adag ee gobolkaasi. aad bay u wanaagsanayd ayuu yiri in laga shaqeeyo arrimaha la xiriira nabadda iyo waliba in kor loo qaado xaaladda Mareykanka uu keenay ee lagu soo afjarayo colaadaha. hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil ee lagu magacaabay Yair Lapid ayaa sheegay in Israa'iil ay wali ku jirta xaaladeedii siyaasadeed ee ugu halista badnayd taariikhda tan iyo markii la unkay 1948 oo dowladda Ingiriisku ay ku wareejisay dhulkii Falastiiniyiintu ay lahaayeen. isagoo tilmaamay in kastoo heshiiska laga gaaray Gaza la saxiixay haddana dalka uu wajahayo buu yiri go'doon caalami ah maalgashi lagala laabtay iyo waliba madax sare oo xilalka ka tagaya taasi oo muujinaysa heerka nidaamka Israa'iil uu marayo marka la fiiriyo qorshaha kama dambaysta ah ee dhismaha dowladnimadooda. Lapid waxa uu sidoo kale sheegay in ay qalad weyn ahaa in Netanyahu uusan ka qayb galin shirka caalamiga ah ee dhawaan lagu qabtay magaalada Sharm el-Sheikh ee wadanka Masar. tan iyo wixii ka dambeeyay markii qaar kamida mas'uuliyiin kala duwan ay ku dhawaaqeen in ay ka baxayaan arinta la xiriirta xaaladda wadankaasi in ay muujinayeen qaar kamida
dowladaha waaweyn oo ka qayb gala shirkaasi inay aada uga soo horjeedeen imaashiyaha Netanyahu. wafuud ka socotay dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo dowladda Masar ayaa saacadihii la soo dhaafay kulamo xasaasi ah ku lahaa magaalada Qaahira, waxaana la doonayaa in lagu soo afjaro colaadda kama dambaysta ee halkaasi muddada dheer ka taagnayd. wafdiga sare ee Xamaas ee magaalada Qaahira kulanka kula leh mas'uuliyiinta sarsare ee dowladda ayaa ka wada hadlaya arrimaha Falastiin iyo waliba sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka ka taagan mustaqbalka magaalada go'doonsanayd muddada dheer. ila xog ogaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP in wadahadalladu ay socon doonaan muddo 2 maalmood oo diiradana lagu saari doono midnimada siyaasadeed ee Falastiiniyiinta, qaab dhismeedka maamulka Gaza ee xilliga kala guurka, dhismaha guddiga madaxa bannaan ee aqoon-yahanada iyo qodobo kale oo aad muhiim u ah. hase ahaatee dhinaca Falastiiniyiinta ayaa ballan qaaday in si buuxda ay u taageeri doonaan guddiga madaxa bannaan iyadoo doonaya inay si toos ah uga mid noqon maamulka cusub ee kumeel gaarka ee halkaasi laga dhisayo. wadahadallada ayaa sidoo kale lagu falanqeynayaa tallaabada lagu hirgelinayo wejiga labaad ee heshiiska xabad joojinta, sida furitaanka marinka Rafah ee u dhaxeeya Masar iyo Gaza, kordhinta gargaarka bani'aadanimada ee gaaraya 400 oo gaari maalintii, dhamaystirka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee ku haray gudaha marinka, taasi oo xiisada aad u sii cuslaanaysa. wafdiga Xamaas ayaa la filayaa in uu kulamo la yeesho mas'uuliyiin Masaari ah iyo kuwa ka socda dowladda Qatar, iyagoo xaaladda si weyn u indheynaya isla markaana ka wada hadli doona sida ugu dambeynta ah ee la doonaya in lagu soo afjaro colaadda halkaasi ka ogan. dhinaca kalena dowladda Iran ayaa ku dhawaaqday in laga hortagay badbaadada weerar ka socda in la badbaadiyay weerar ku soo fool lahaa wadankaasi oo la doonaya in lagu baabi'iyo gantaalahooda iyo waliba hubka nuclearka iyo waxyaabaha ay farsameynayaanba. sidaasi waxaa sheegay taliye sare oo ka tirsan ciidamada kacaanka ee dowladda oo lagu magacaabo Maxamed Reza Naqdi oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta wadankaasi. sida ay tabinaysa wakaaladda wararka Mehra ee gacan saarka la leh dowladdu, waxa ay muujinaysaa in dowladda Iran ay dadaal badan ku bixinayso sidii loo soo gabagabayn lahaa colaadda. dowladda Iran ayaa ku dhawaaqday intii dagaaladu ay soconayeen 140 diyaaradood oo aan duuliye lahayn inay ka soo rideen isbahaysiga Israa'iil iyo Mareykanka ee doonaya in ay qayb ka noqdaan dagaalkaasi. waxaana Iran ay haatan sheegtay inay u diyaarsan tahay wadankeeda inay ka badbaadiso isla markaana gantaalaheedu ay caafimaad qabaan weerar kale oo lagu soo qaadanay jawaab kale oo lixaad ay ka bixinayaan. akhyaarta inala socotay tabintana intaas ayaan ku abeeyaa. waa Cabdicasiis Barrow idile. si aad macluumaad iyo warar kale oo dheeraad ah u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. nabadgelyo.